waxa uu mashquuliyey caalamka isagoo jira keliya 17 sano haatanna waxa uu iska helay camaaliqada Yurub ee Real Madrid isagoo aan gaarin da'diisii 20aad. isagu waa jawharada Ingiriiska ee Jude Bellingham, saxiixa labaad ee ugu qaalisan taariikhda kooxda Real Madrid. asalkiisii bilowgii waayihiisa maxay u xirtay naadigiisii hore Birmingham nambarkiisii 22aad, sirta ku biiristiisii Real Madrid iyo nambarka 5aad, mushaar sanadeedkiisa iyo kan uu kaga daydo kubadda cagta, koobabkiisa iyo rikooradiisa aan la loodin karin, cishqigiisii Messi iyo xaqiiqada taageeradiisii Barcelona iyo diidmadiisii 2 Manchester. magaciisa buuxa waa Jude Victor Bellingham. waxa uu ku dhashay 29 bishii Juun sanadkii 2003 magaalada Stourbridge ee dhacda Midland ee galbeedka waddanka Ingiriiska. hooyadii waxaa lagu magacaabaa Dennis, waxay asalkeeda ka soo jeedaa Afrika. aabihii waa Ingiriis lagu magacaabo Mark. heerarka hoose ee kubadda cagta Ingiriiska ayuu soo ciyaari jiray ka hor inta uusan isku bedelin askari boolisa. Jude waxa uu leeyahay walaal la dhashay oo ka yar 2 sano kaasoo lagu magacaabo Job. waa playmaker caalami ah kaasoo dhowaan ku biiray kooxda kubadda cagta Sunderland. layaab ma lahayn mawhibada laacibiintan iyo cishqigooda kubadda cagta waxay ka dhaxleen waalidiintooda. Mark Bellingham waa aabbaha dhalay wiilkan, islamarkaana waxa uu magac weyn ka sameeyey naadiyada heerka hoose ee waddanka Ingiriiska tan iyo intii uu bilaabay ciyaaristeeda ka weeraryahan ahaan sanadkii 1994 taasoo ka dhigan 9 sano ka hor dhalashada Jude. xilliganna waa sarkaal ka tirsan booliska Britain. waxay ka tiri jariirada The Guardian ee waddanka Ingiriiska joogtaynta shaqada booliska kuma caawin Bellingham inuu gaaro heer caalami marka la eego kubadda cagta, laakiin heerarka hoose ayuu wacdare ka dhigay isagoo dhaliyay in ka badan 700 gool. xilliganna waa wakiilka wiilkiisa. Jude waxa uu kubadda cagta ciyaaristeedu ka bilaabay naadiyada Ingiriiska ee magaaladiisa Stourbridge, laakiin waxa uu cishqi u hayay naadiga Birmingham. naadiga shabahaysa magaciisa waalidkii ayaa ku caawiyay ku biirista akademiyadeeda sanadkii 2010 isagoo jira 7 sano. bilowgiisii waxa uu ka ciyaaray booska garabka midigta ee weerarka, laakiin il-khabiir ayaa isugu bedeshay laacib qadaxe. waxa uu la sameeyey wacdaro isagoo isaga dambeeyay heerarka kala duwan ee kooxda ilaa laga soo gaaro kooxda koowaad isagoo jira 16 sano kaliya. kadib heer indhadaraandarle uu kula yimid xilciyaareedkii 2019-20 Championship-ka waxaa afduubatay naadiga Dortmund si uu wacdaro ula sameeyo ka hor inta uusan caga dhigan naadiga Malaki. ama caalami ahaan waxa uu ciyaaray heerarka kala duwan ee xulka qaranka waddanka Ingiriiska. sanadkii 2020 waxaa loo soo dallacsiiyey xulka koowaad kaasoo wacdaro ka sameeyay koobkii qaramada qaaradda Yurub iyo koobkii dunida 2022. wacdaradii uu la sameeyey xidigaha Birmingham, mawhibada suluugiisa, laazimidiisa, heerkiisa indhadaraandar kale, wixii uu la sameeyey kooxda koowaad iyo ku guulaysigiisa laacibka ugu fiican daada yar, dhammaantood waa sababo ku riixay naadigiisa inay u xirto nambarka 22aad kaasoo uu xiranaya ka weyneyn ahaan si tusaale ugu noqdo kuwa ka dambeeya. keliya intaasi ma ahayn asbaabihii Birmingham ku riixday in tallaabadaasi ay u sameeyaan, waxaana tani ay ka dambaysay tallaab qurux badan oo u sameeyey kooxda. wuxuu awood u lahaa in bilaash uu kaga baxo safka kooxda sanadkii 2020 kadib markii heshiiskiisu uu soo dhammaaday waqti ay xiiseynayeen naadiyada waaweyn ee Yurub. waxa uu doortay in heshiiska ugu daro naadigiisa si damaanad ugu yeelo inay ka faa'iidaan laacibkan heshiiskiisa. xilciyaareedkii 2022 waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta Dortmund muqaabil ahaan 30 milyan oo euro, ka ahaan heshiiskii ugu qaalisanaa isagoo jira 17 sano. haddii aan u eegno laacibkan guulihiisa shakhsiga, waxa uu kula guulaystay naadiga Dortmund koobka Jarmalka, laacibka ugu fiican Bundesliga. sidoo kale waxa uu noqday kii ugu yaraa u ciyaara naadiga Birmingham, kii ugu yaraa isagoo Ingiriisa safta Champions League iyo kii ugu yaraa ee ka qayb gala tartan caalami ah uu dhashay waddanka Ingiriiska kadib Michael Owen. hore ayuu u ictiraafay Jude kan uu kaga daydo kubadda cagta inuu yahay Zinedine Zidane, isagoo mar dambe sheegay inuu ahaa kii ugu fiicnaa ebid uu arko, iyo sida uu la cajabsan yahay laacibiinta ay isku waddanka yihiin ee Steven Gerrard iyo Wayne Rooney. isagoo ka hadlayana waxa uu ka leeyahay, markii aan yaraa mar walba waxaan doonayay xirashada maaliyadaha Gerrard iyo Rooney
aad baan ula cajabsanahay in badan. marba haddii Bellingham nambarka 22aad uu ka doortay nambarada kale, waxa uu kashifay mid ka mid ah tababarayaashiisa markii uu yaraa wiilkan in sirta ay ka dambayso. waxa uu caddeeyay inuu ku wanaagsan yahay ka ciyaarista boos kasta, booska afraad, sideedaad iyo xitaa kan tobnaad. sidaasi daraaddeed sababtaasi ayaa loo siiyey nambarka 22aad, waana wadarta nambaradaasi. laakiin nasiib darro uma suuragelin qaadashada nambarkaasi markii uu ku biray safka malaki Real Madrid, maxaa yeelay waxa uu xiran yahay Rodiga, wiilka u dhashay wadanka Jarmalka. laakiin waxa uu ka doorbiday qaadashada nambarka 5aad ee gaarka u ah kan uu kaga daydo kubadda cagta ee Zinedine Zidane. sidoo kale nambarka 5aad waxa uu xidhnaa Viejo, waxa uu ka leeyahay Jude. waan u mahadcelinayaa Viejo, kama jirin wax mushkilada markii aanu ka sheekaysanay arrintan. anigu aad baan ula cajabsanahay Zidane in badan, dhaxalkiisa naadigan iyo nambarkan way ugu wen yihiin. anigu waan ka duwanahay, laakiin isaga ayaa ii ahaa mid aan ku daydo. laakiin waxaa suuragala meel aan wanaagsanayn inuu ila galo nambarka, balse waa doorashadeeda ugu fiican. bilowgiisii markii wacdaro uu la sameeyey naadiga Birmingham isagoo jira 16 sano, waxaa soo doonatay naadiga kubadda cagta Manchester United oo xiriir la samaysay naadigiisay waalidiinta laacibka, iyadoo caddaysay inay doonayso bixinta 25 milyan oo euro si ay u helaan saxiixa mawhibadan da'da yar. laakiin kan dambe waa uu diiday kadib markii aabihii uu ka fadilay horumarkiisa, kadibna la eego tallaabo ka sarraysa. geesta kale jariirada The Athletic waxay caddaysay in Pep Guardiola iyo Erling Haaland saaxiibkiisii hore Dortmund ay isku dayeen la xiriirka laacibka si uu ugu soo biiro Man City xilciyaareedkan, laakiin waa uu diiday wiilka u dhashay wadanka Ingiriiska. qaadashada wiilkan malaki waxay ku kaliftay 103 milyan oo euro, waqti ay gaari karaan lacagahaasi 134 milyan marka lagu daro guulaha mustaqbalka uu la gaaro wiilkan kooxda. ama mushaaraadkiisa waxaa lagu qiimeeyaa 12 milyan oo euro. marka laga tago nambarka 5aad, shirkadda Adidas waxay u samaysay Jude maaliyad lagu daabacay Made in Bellingham, macna ahaan waxaa loo sameeyey Bellingham. waxay saaxiiban yihiin Ameerikaanka Giovanni Reina, halka cilaaqad xoogan ay kala dhaxayso hooyadii, kaasoo maalin aan faaruqin. markii uu wareegay Dortmund kuma mashquulsaneen la qabsiga magaalada, qadarka inuu isweydiiyey sidee ayaad ku noolaan doontaa iyadoo aan ku quudin hooyada, ka hor inta aysan go'aansan u safridda Jarmalka iyo la noolaanshaha wiilkeeda. ama madadaaladiisa iyo balwadiisa waxa uu jecel yahay Jude, muusiga iyo heesaha. waraysi hore loogu weydiiyey cidda fiican Messi iyo Ronaldo waxa uu ka yiri, hubaal Messi markasta oo aan daawanayo waxa uu sameeyaa waxyaabo iga yeelaya inaan isweydiiyo kani ma bini aadanba. wararka qaar waxay tilmaamayeen taageeradiisa iyo cishqigiisa naadiga Barcelona. weliba waxaa jiray sawir la wareejinaya baraha bulshada kaasoo muujinaya laacibka oo xiran maaliyadda Barcelona ee Messi, laakiin haddana ma cadda wejigiisa oo laacibku waa uu sii jeedaa. marka la eego sababihii uu doortay laacibka naadiga Real Madrid isla markaana ka fadilay naadiyada kale Yurub, waxa uu ka leeyahay marba haddii aan ka mid ahay kuwa aadka u jecel naadiga Real Madrid. Real Madrid waa koox mar walba aad doonaysid inaad aadid, waana fursad weyn oo cajiiba taasoo marna aan la diidi karin. finalkii malaki ay ka hortegaysay Liverpool waan joogay, waxaan ku arkay waxyaabo badan oo cajiib oo isoo jiitay, kuwaasoo sababay inaan imaado Madrid. iyadu waa naadi weyn oo ka soocan kuwa kale. sahal bay ahayd inaan ku laabto Ingiriiska, sidaas ayna igula taliyeen saaxiibadeyda xulka, laakiin waxaan ka doorbiday inaan ka baxo mandiqada raaxada.